waxaa qadka ku jira Mukhtaar Xasan Yarow oo kamid ah tartamayaashii maanta magaalada Baydhabo ee u tartamayay jagada xildhibaannimada mudana ku soo dhow si ay wax u dhaceen maanta inoo faahfaahin maanta waxaan adduunyada lagu araga lagu sameeyay oo dulmi ah oo musuqmaasuqa cadaalad darro ah anigoo nin musharax ah oo da'deydana 57 sano jira ayaa ninka aan la tartamaya oo 4 sano xildhibaan ahaa oo 3 dowladood xildhibaan ahaa wax qabadkiisa iyo waxtarkiisa aan caadi ahayn kadib waxaa dhacday markaan isagoo macnihii ergadii gacantiisa kusoo qortay iyadoo ay gacan saar la lahaayeen oo howsha u fududay nin wasiir murfaaqiinta la yidhaahdo xasan cabdi la yidhaahdo oo beesha macalweyne ka dhashay xasan oo dana gaare ninkan lacag 10,000 uu ka qaatay 20 loo ballan qaaday ayuu u daadihinayay guddiga doorashooyinka dacwadan ka geynay dacwadii la sawiray oo la qaaday la yidhi al-amuum ergadii markaan sawirka laga qaaday aan qiimeeyey xaaladooda 15 nin waxay ahaayeen ilaahay haddaan ka baqo sheekh shaacir mid albashay oo la yidhaahdo saqaawo sheekh maxamed birkaan midka labaad wuxuu ahaa xasan sheekh shaacir uu ahaa kuwa kalena waxay ahaayeen laba walaalihiisa wiil walaalkiisa dhalay kuwa kale saas oo kale adeer abti 15 inay ahaayeen guddiga guddoomiyaha markaan u tegay sidaanaan ku dilaayiray laakiin 15 kaanan ka cabasho kaga muujiyey waxaa yidhi 6 qof laga bixinaa 6 qof lagugu daraa waxaa lasoo madadaalay beri siilay lahaa doorashadii soo dugadashay kadib markaan waxay wuxuu yidhi kor oga baxsaan ku dilay haa okay ergadii saaka markii la xareeyey aan meesha tegay horeba aniga baaba laga tabaabushaystayba liiska oo musharaxnimo warqadii oo aqbalkana waa haystay ninkaas gabar ayaa la yidhaahdo xaliimo maday iyo isagaa lagu soo qoray aniga waaba laga tashaday aniga guddi xumaa meesha u galay warqadeeda wata ergadii isaga soo qortay ahayd wax yar kadib haddaan kursiga fariistay nin aniga ila socday oo aniga howlwadani ahaa ayaa markii dambe markii loo yimid oo anagoo gudaha ku jira ergadii hor fadhino kiyaa laga soo qabtay oo 3 askariya qadaadka waxaa lagu soo rutay banaanka loo soo bixinin odayo da'deyda oo kale ahaa aniga wax yar kadib ninkiyaa wuxuu leeyay ninkaa ilama tartamaayo wuxuu ku wareegaba waxaa shir sameeyey wasiirkaas xasan cabdi iyo mursal oo guddoomiyaha ayaa wax dhaqaalaha haddana mar kale dhexmaray aniga saan u dhex fadhiyey 6 askariyaa laii soo diray banaankaa laisoo bixiyey markii banaanka laisoo bixiyey qolo UN-ka ah ayaa maxaa dhacay ay yidhaahdeen warqadiaan tusay ninkii UN-ka jooga galow yidhi markii dambe annagaa xalinayna qadaadka ama shaatiga kulli jaakada gadaasheeda laisoo jiiday banaanka yaa yeelay waxaa la yeelay nin baafo la yidhaahdo baafo marka xagga la istaagay waxaa yimid mursal waa la iwaday meel laaba la geliyey kuraasaan dhiganay waxaa la mursal hadalka ugu horreeya iskaga tanaasula yidhi ninkan waa tahay waxaa nagu maqaala in lagu yiri lacag dhaqaalo qaado kana talaasul arrintan midda kale waxaa su-aasha isweydiinta mudan ay tahay adigoo bixiyey dhaqaalihii doorashada iyo musharaxnimadana buuxiyey shuruudihina buuxiyey sababta keentay in lagu soo dari waayo liiska sababta lagu soo dari waayo cabsi aada u fara badan ninkaan kalsoonidiisa yar shacabka beesha macalweyne meel kastoo joogaan ninkaan kalsoonidiisa aaday u foolxumeyd 15 kaas uu dhalay maahayn haddii meel walba laga keeno oo isaga loo madax baneeyo oo soo qorto aniga waxaan waa diyaar oo codkana kaga qaadi lahaa inaan ka qaaday markuu arkay ayuu nimankaa mursala ku daba wareegtay laaliisuu bixiyey maalmahan oo dhan aa laguday aniga badiiska ma layguma darinba marka okay waa tahay waxa guddiga doorashooyinka ayaa laaluushka qaatay miyaa leedahay nacam ninka la yidhaahdo dana gaara inuu wato waxaan ka ogaaday lacagtaada qaado 2 jeer uu yidhi dacwaa kaa taala ninkaan beesha waxaas kugu dacweynaya odagii saxiixaha ayaan telefoon u diray maku go'daa haa odagii markuu la hadlay ayuu wuxuu yidhi ninkaan isagoo fahmaya oo kujeedu lahay ninkaan ani maan qaani telefoon waa igu qaldin uu dhahay haye odayaashii 15 nin oo darab aan kuu keenay kusoo hor fadhiistay noo cabtiri ani isaga hal jifale iskala soo baxnay ee lagu sheegay maxaa ka dhahday kuwaasna maan qaani yidhi wax yar kadib warkiiba haddii aan ku celceliyey waxaa ii yimid 20 askari iyo korneelkii meesha xukumay
aniga qadaadka lagu dhuftay waa la ii qadan qadiyaano da'daas mar waa kufay faryar wax waa iga gaaran geedka hoose banaanka lagu celiyay wiilashii kala banaanka soo booday 7 ah 7 ayagana waa la garaacay aniga ayagana meesha nalagu xiray toorankii 7 ka soo baxay 7 kale oo beero kale ka dhashay oo irgaha ayaa lagu soo buuxiyay aniga marka sidaas la ii galay waa tahay maxaa caddayn u haysaa in erge kale oo ka baxsan beesha lagu soo daray maxaa caddayn u haysaa mukhtaar ahaan adiga oo ah musharax beesha u taagnaay xildhibaan waxaan u hayaa macnihii qoladii gudaha ku jirtay ayaa macnihii ku cadaynaysa wax kalsoodiya maaha gudi hataa tirada lagu soo daray 7 waa ka yaraayay iyagoo koorankiisa aan buuxsanin oo 52 ka yar ayaa macnihii oo sheekada sii wada haloo codeyn yiri dadkii aniga ii codeyn lahaa meesha joogay hataa warqado aan waxba ku qornayna meesha la tagay ma garan waa tahay guddiga korjoogtada ee doorashooyinka arrintaas ma la socdeen hawsha siday wax u dhaceen nacam waa la socdeen kuwa nabadgelyo ciidanka nabadgelyo korneelka la weydiin karaa nin walba oo meesha jooga arrintaas lagu sameeyey arrin aad iyo aad u foolxun ay ahayd waxaaba kasii daranba aniga saasay lagu sameeyey rag oo macnihii ilada kore lagu reebay oo saasi jiray oo beesha waageen hataa waa jireen 2 nin 3 nin ahaayeen hal nin gudaha la geliyey 2 nin oofaa la yiri ninkiina saasuu ku guulaystay barnaamijka ay wadaan waa mid cadaalada aad uga fog maamul xumada ka okay waxaan rabnaa inaad bulshada u caddaysa ninkii aad la tartamaysa si ay macnaha magaciisa sheekh shaakir sheekh shaacir ninka aan la tartamayo waxaa la yidhaahdaa musharax sheekh shaacir sheekh maxamed birkaan sheekh maxamed birkaan baa la yidhaahdaa waa tahay sheekh shaacir sida informationka aan ku hayno xogta ku hayno waxaa la tartamay maanta gabar kalaa la tartantay marka gabadhaasi kale maxay ahayd idan ma musharaxiinta kamid ahayd maya gabar askariyada oo qoys ahaan isu xigaan ayaa 2,500 ka shubay uu ka shubay si anigaba aan meesha ula soo istaagin oo ugu talagalay waa tahay aad iyo aad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahay mukhtaar oo kamid ahay musharaxiintii maanta sida boodfolka ah kala kulmay doorashadii ka dhaceysay magaalada baydhabo halkaas oo maanta sida la sheegayo uu ka jiray musuq maasuq aad u xoogan aad u mahadsan tahay mukhtaar mudane